سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا هانتين به ملك استوجو كتان قصود وادا ورك قلب من تلفزيون كشيمين وحايدين ورم دون تاني جوا إسرائيل بقضاء بدو ورك أقدر كورونا وح كمدة. kulanka hadalada asxaabta siyaasadeed ee deegaanka Soomaalida ayaa ka qabsoomay magaalada Qabridahar ee gobolka Qoraxay. xuska maalinka dhalinyarada ayaa lagu qabtay dowladda deegaanka Soomaalida. waxaa maalinkii afraad galay ololaha qaliinka ee deegaanka Soomaalida waxaana qaliinka fulinaya dhakhaatiir ka timid dalka dibadiisa waxaana howlaha qaliinka tabarucaadka soo agaasintay hay'adda Horon Aid Organization ama hay'adda caawinta bariga Afrika. daawadayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii warka ugu door corona haatan ku soo dhawaada qodobada iyo qodobo kale faahfaahsan. kulanka hadalada asxaabta siyaasadeed ee deegaanka Soomaalida ayaa ka qabsoomay magaalada Qabridahar ee gobolka Qoraxay. faafaynta warkaasina aanu talawno. kulanka hadalada asxaabta siyaasadeed ee deegaanka Soomaalida ayaa ka qabsoomay magaalada Qabridahar. kulankan ay ka soo qayb galeen ururada siyaasadda ee deegaanka Soomaalida ka dhaqdhaqaaqa xubnaha xafiiska xisbiga barwaaqo ee deegaanka Soomaalida hogaaminta xisbiga barwaaqo ee gobolka Qoraxay jarar doolo maamulka magaalada Qabridahar maamulka magaalada Dhagaxbuur hogaanada nabadgelyada iyo sidoo kale qaar kamid ah WSLB on alif UDF iyo xisbiga barwaaqo. ujeedada kulankan ayaa ahaa sidii loo dardargelin lahaa loona xoojin lahaa iskaashiga asxaabta siyaasadeed isla markaana ujeedada kulankan ayaa ahayd sidii loo dardargelin lahaa loona xoojin lahaa iskaashiga asxaabta siyaasadeed isla markaana loo adkeyn lahaa dhismaha nidaamka dimuqraadiyadda. guud ahaan waxaa la isla qaatay in asxaabtu si wadajir ah uga qayb qaataan xoojinta nabadgelyada iyo horumarka deegaanka. arrimaha masiiriga ah ee danta guud ee shacabka. kulankan ayaa kadib asxaabta siyaasadda waxay dhirbeeris ku sameeyeen xafiiska maamulka gobolka Qoraxay sidoo kale waxay booqdeen mashaariicda horumarineed ee laga hirgeliyay maamulka magaalada Qabridahar. xuska maalinka dhalinyarada ayaa ka qabsoomay deegaanka Soomaalida ee caasimadda Jigjiga. faafaynta warkaasina aanu talawno. xuska maalinka dhalinyarada ayaa lagu qabtay magaalada Jigjiga. munaasabadan oo halkudhig looga dhigay dhalinyaradu waa dhaxalka bulshada iyo rajada barito ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiir ku-xigeenka xafiiska dhalinyarada iyo ciyaaraha dowladda deegaanka Soomaalida mudane Maxamed Anyaale iyo dhalinyaro iyo marti sharaf kale. maalinta dhalinyarada adduunka ayaa sanad walba si rasmi ah looga xusaa dunida. maalinka dhalinyarada adduunka oo sanad walba si rasmi ah looga xuso ayaa dunida markii 25aad la qabanaya halka la xusayo markii 22aad. ujeedada xuska ayaa ah kor u qaadida ka qaybgalka dhalinyarada dhanka horumarka nabadgelyada iyo bulsho waarta. waxaa maalinkii afraad galay ololaha qaliinka ee deegaanka Soomaalida waxaana qaliinka fulinaya dhakhaatiir ka timid dalka dibadiisa waxaana howlaha qaliinka tabarucaadka soo agaasintay hay'adda Horon Aid Organization ama hay'adda caawinta bariga Afrika. faafaynta warkaasina aanu talawno. waxaa si rasmi ah looga bilaabay hosbitaalka takhasuska sare ee Sheekh Xasan Yabare iyo hosbitaalka guud ee Karamardha ee magaalada Jigjiga. ololaha qaliinka oo noqonaya midkii ugu ballaadhnaa ee noociisa lagu qabto deegaanka ayaa muddadan toddobaadka ah ee deegaanka ay joogayaan dhakhaatiirtan ku filin doonaan qaliimo kala duwan sida qaliinka guud, qaliinka maqaarka, qaliinka kaadimareenka, qaliinka lafaha iyo sidoo kale qaliinka lafaha caruurta. waxaana la rajaynayaa inay ka faa'iideystaan bukaano tiradoodu u dhaxayso 250 ilaa 300 oo qof. Marwan Nicimo Sheekh Mukhtaar oo ah agaasinka hay'adda Horon Aid Organization ama hay'adda caawinta bariga Afrika oo ka shaqeynaysay muddo 10 sano ah caawinta dadka danyarta ah ee geeska Afrika ayaa haddana keentay dalka dhakhaatiirtan takhasuska qaliimada guud iyo qaliimada gaarka ah soona agaasintay ololaha qaliinka caafimaadka ay sameynayaan
dhaqaatiirtan ka timid dalka dibadiisa iyada oo taageero ka helaysa xafiiska caafimaadka dowlad deegaanka Soomaalida iyo sidoo kale madaxtooyada deegaanka Soomaalida ayaa ka warbixisay ujeedada ololaha qaliinka inuu yahay in looga faa'iideeyo bulshada danyarta ah ee awoodin qarashaadka qaliinka iyo daaweynta ku baxaysa hay'adan caawinta bariga Afrika ee Horan Aid Organization ayaa qaadanaysa tiro agoomo ah oo la kafaalad qaadi doono sanad dugsiyeedkan cusub ee 2018 taariikheedka Itoobiya iyada oo taageero ka helaysa dowladda Qatar daawadayaal warka waxaa idin la socodsiinaysay galabta anigoo ah Israhabi intaan warkan warkii kulmi doono aniga bahdayda waxaan kaga tageynaa salaamu calaykum ورحمة الله تعالى وبركاته.